labada doorasho oo Mareykanka ka dhaceyso si qaas ahna isha lagu wada hayo waa midda New York ka dhaceyso iyo midda Minneapolis ka dhaceyso. New York oo ah magaalada dhaqaalaha ugu badan ee dunida u yaalo waxa ka sharaxan wiil Islaam ah laguna magacaabo Mamdani una badan tahay 90% in uu ku soo bixi doono doorashada maayarka New York. haddaba Mamdani guushiisa waa iska cadahay waxa wato Islaam waxa wato Yahuud waxa wato cadaan waxa wato madow waxa wato Hindi guushiisana 90% waa iska cadahay. Soomaalida si qaas ah waxa u taabanayso mid ka dhaceyso Minneapolis waxa ku nool 430,000 oo qof. Soomaalida ku nool waxay gaarayaan 80,000. percentage-ka Soomaalida waa 18% waa dad aad u badan. haddaba Umar Fattah Soomaali bas ma soo saari karto. Jacob Freyna sidoo kale. Umar Fattah waa in uu wataa bulshada ku nool magaaladaas 50%. sidoo kale Jacob Freyna in uu wataa Soomaali bas ma ahane dadka kale oo dhan waa in uu wataa in ka badan 50% waa in uu ku soo baxaa. haddaba Soomaalida waa ay kala safteen. qaybna waxay taageersan Umar Fattah oo iska cadaa qof Soomaali ah sharaxan. qaybna waxay taageersan yihiin Jacob Frey oo waxa weeyaan dad la shaqeeyo sida Axmed Xirsi oo ah la taliyihiisa qaaska ah. sidoo kale dad badan oo NGO ah oo u fududeyn jiray in ay helaan lacagaha NGO-ga. haddaba Soomaalida ayaa lagu kala qaybsamay. Qorbaha markii la joogo siyaasadda iyo qofka u kaambi gareynaysid waji malahan. Soomaalida ka baxsan magaalada Minneapolisna arrimaha Minneapolis si qaas ah in aan ku sii doodno waa laga fiican yahay. qofkii ay dooranayaan magaalada Soomaalida ku nool ay u talaa. aniga Umar Fattah markii isu soo sharxayba Soomaalida u soo gudbiyay waxaan rajeynayaa in uu guuleysto. Jacob Frey haddii uu soo baxana dabcan waa qof Soomaalida wada shaqeyn dhow la leeyihiin. nolosha doonaa si qaas ah ayaan isha ugu hayaa last update-ka siyaasadda dhaqaalaha dunida la socda. Thank you.